golaha deegaanka degmada Gabiley ayaa maanta yeeshay kalfadhigoogii 14aad kalfadhigaasi oo ay kaga doodayeen miisaaniyad sanadeedkii 2017 mashaariicii horumarineed ee u qabsoomay sanadkaasi sidoo kale waxay kaga doodayeen miisaaniyad sanadeedka 2018 gudoomiyaha golaha deegaanka Gabiley Maxamed Amiin Cumar Cabdi ayaa faahfaahin ka bixiyay maanta ay bishu tahay 9kii bishii koobaad 2018 waxa howlka shirarka ee golaha deegaanka Gabiley inooga furmi doona kalfadhigii 14aad ee golaha deegaanka Gabiley waxa idinka mahad celinayaa ka soo qaybgalka fadhigan waxa ka soo xaadiray 17 mudane oo ah xildhibaanada golaha deegaanka Gabiley fadhiga 14aad waxa lagaga doodi doonaa 5 qodob haddii aanay xildhibaanadu wax ku soo kordhin 5 qodob waxa weeye sida caadiga sanad baa inoo dhamaaday inuu ka soo gudubnay marka warbixin sanadeedkii caadiga ahayd oo soo jeedin doona insha Allah warbixintii miisaaniyaddii 2017 oo ay guddida dhaqaalaha golaha deegaanku warbixin ka sii doonto golaha كدوديستا ميزانية 2018 وعبد الرزاق أحمد هيان الكعسي سومنيوز تي في Gabiley.